بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waan idin salaamayaa khiyaarta kala duwan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barteena youtube-ka ee Hargeysa Trade House oo aanu rabno inaanu maalmaha soo socda idinku soo gudbino casharo taxan ah oo ku saabsan sida looga shaqeysto suuqa sarifka lacageed ee ugu weyn adduunka. haddaba suuqan ayaanu rabnaa maanta oo ah maalintii koowaad ama introduction-kii inaanu ku faahfaahino forex trading wuxuu yahay iyo sida looga shaqeysto. haddaba haddaynu ku bilowno kelmadda forex ama suuqani wuxuu yahay, suuqani waxa weeyaan waa suuq caalami ah oo aad u weyn. suuqan waxaa la yidhaahdaa forex waa laba kelmadood oo isu tegay. labada kelmadood ayaa waxay kala noqonayaan waa foreign iyo exchange. waa foreign exchange market, marka waa suuqa sarifka lacagaha qalaad haddaynu luuqadeena ku sheegno. markaa suuqan ayaanu rabnaa maanta inaanu idinla wadaagno. suuqani maaha wax adduunyada ku cusub, maaha wax dadka Soomaalida ku cusub. waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliya baa maqlay, qaar badan baa baaray laakiin iskaga hadhay, qaar badan baa ka shaqeysta, qaar badan baa weli isaga hawshiisa ku jira. markaa waxaanu rabnaa iyadoo ay howlahaasoo dhami jiraan inaanu maanta soo gudbino kooras gaaban oo ku saabsan sida looga shaqeysto suuqan sarifka lacageed ee adduunka ugu weyn. haddaba suuqani waxaanu kaga warrami doonaa intaynu ku dhex jirno isaga laftarkiisu wuxuu yahay, taariikhdiisii, yaa suuqan ka qayb qaata ama yaa dhaqaajiya, yaa maxaa la eegaa marka suuqan la gelayo, maxaa shuruud looga baahan yahay qofka, qofka laftarkiisu sidee buu suuqan u gelayaa, maxay kala yihiin waxaa laga shaqeysanayaa, miyay jiraan suuqyo kale oo isaga lamid ah. dhammaan qodobadaasoo dhan oo qof kasta isweydiinayo waxaanu kaga jawaabi doonaa inta uu inoo socdo taxanahan. haddaba maanta waxaanu rabnaa inaynu, maadaamay tahay maalintii u horeysay, inaynu isla garanno bal horta waa marka koowaadee wuxuu yahay forex trading. sidii aynu hore u sheegnay, haddii aynu ku noqonno, waa suuqa sarifka lacagaha qalaad. haddaba qof kasta wuxuu isweydiinayaa suuqani halkuu ku yaala, suuqan talo halkee laga helaya. waxa weeyaan suuqani waxaad ka helaysaa qof kasta iyo meel kasta oo uu joogo suuqan wuu ka shaqeysan karaa. haddaba su-aasha kale isweydiinta leh waxay tahay, suuqan sideebuu qof kasta uga shaqeysanaya isagoo meeshuu doono jooga. haddaba qofka jooga Yurub, qofka jooga Africa, qofka jooga Aasiya, qofka jooga America, dhammaan waa loo siman yahay. qof kastaana wuxuu keliyaata oo uu u baahan yahay si uu suuqan uga shaqeysto internet, mobile ama laptop wuxuu haysto iyo platform ku shaqeysto. saddexdaa shay hadduu helo qofkan suuqan uu ka shaqeysan karaa. haddaba bal waxaynu isla eegi doonaa inagoo sheegnay saddexdaa qodob oo khaliya in looga baahan yahay qofka. qof kastoo dhalinyaro ah oo inaga midi saacado badan ayaa wuxuu ku qarash gareeyaa social media iyo waxaan waxba ka faa'iideyn. haddaba barnaamijkan haddaad ku qarash garaysay intaad kuwa ku qarash garaysay, waxaa laga yaabaa inaad mustaqbalkaaga meel saartid oo aad mustaqbal fiican isaga dhexdiisa ka raadisid. iyadoon jecelahay qof kasta oo maanta daawada videogan ama casharkan aynu ku falanqeynayno forex inuu isaga laftarkiisu research sameeyo oo uu baaro. haddaba haddii aynu kusoo noqono anoo rabin inuu videogani dheeraado, maxaynu koorsadan yar ee gaaban kaga hadli doonaa. horta waxaanu kaga hadli doonaa marka hore forex basicska. qodobka labaad, sideebuu forexku u shaqeeyaa. kadib waxaanu isla eegi doonaa qodobadan soo socda. horta waa maxay forexka laftarkiisu, inagoo dib u jaleeci doona taariikhdiisa, waqtiga iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray. kadibna eegi doona war suuqan yaa ka qayb qaata, oo eegi doona yaa suuqan ka qayb qaata ama yaa suuqan ka ganacsada. dad iyaga ka ganacsada ayaynu eegi doonaa. suuqani waa suuq ballaaran, dowladaha lacagahooda ku bedela, baananka waaweyn baa ka ganacsada, hedge fundska ka ganacsada, iyo inaga dadka inagoo kala ah iyo qaar kale. haddaba bal waxaanu eegi doonaa suuqan markaad baranaysid
maaha wax fudud oo hal mar iska baran kartid. laakiin suuqani wuxuu kaaga baahan yahay skill, xirfad buu kaaga baahan yahay. wuxuu la mid yahay wax kasta oo kale oo aad baran lahayd, xirfad bay kaaga baahan yahay. isaguna waa la mid, xirfad buu kaaga baahan yahay. xirfad iyo wuxuu kaaga baahan yahay inaad yeelato muxuu ahaye wax la yidhaahdo psychology, qof niyad nafsi ahaan dhisan inaad noqoto. waxa kaloo aynu eegi doonaa waxa la yidhaahdo waxyaabaha suuqa dhaqaajiya, sida global economic calendarska waxay yihiin eegi doonaa, siday riboodyada ay dowladuhu soo saaraan iyo baananku siday suuqan u dhaqaajiyaan, sida wararka kala duwan muxuu ahaye iyo siyaasadaha iyo waxyaabahaasoo dhammi siday suuqan u bedelaan. waxaa kaleynu eegi doonaa bal qof kastooba sideebaad suuqan adigu, currencies waa lacago, sideebaad suuqan lacagaha uga faa'iideysan karta. haddaba marka haddaynu halkaas yara dur istaagno, qofku wuxuu qof kastaaba isweydiinaya waa sideebuu qofkan wax u sarifaya. haddaynu halkaa tusaale yar soo qaadano, waxaan naqaanaa sariflayaasha caadiga. sariflaha caadiga maanta markaad shilin ula tagto wuxuu kuugu bedelayaa dollar, ama dollar baad ula tegaysaa wax kaloo kuugu bedelaya. haddaba isku bedelkaa uu kuu sameynayo sarifluhu waxaa jirta waxa la yidhaha gacan hore iyo gacan dambe. markaa inta yare u dhaxaysa ayuu faa'iidaa isagu. haddaba suuqani sidaa la mid ah, waxaynu hore usoo sheegnay inaad u baahan tahay internet, mobile ama computer iyo platform. haddaba platformka waxaa inagayna siinaya oo suuqa inagu xidhaya waxa la yidhaha brokers, dilaaliin. brokersku waa dilaaliin. dilaalinta inagu waxayna siinayaan platform ama akoon baynu ka furanayna. akoonka aynu ka furanay lacag baynu ku shubanaynaa. lacagta aynu ku shubanay intaynu inagu rabno inaynu ku bedelo ayaynu bedelaynaa. hana moodina suuqani inuu yahay suuq la faa'iido khaliya khasaare u jira. muxuu ahaye markaa qodobkan uga socday waxa weeyaan lacagihii laba isu raacayaan. wax la yidhaahdo currency pairs ayaa jira. markaa imika tusaale ahaan oo kale lacagtii Mareykanka iyo lacagtii euro US dollar, lacagtii New Zealand dollar iyo lacagtii pound GBP. markaa muxuu ahaye lacaguhu saasay isu raacayaan laba. waayo wadan kasta lacag buu leeyahay, waxaan la isku bedelayaana waa lacago kala duwan. waxaa kaloo aynu eegi doonaa muxuu ahaye waxa la yidhaahdo sida loo xisaabiyo qiimaha suuqani in intee leeg buu isbedel. markaa suuqani waxa ugu yar ee uu isbedelo bib baa la yidhaahdaa. inkastay yidhahdaan waxa brokerada qaar 5 digit qoraan ay yidhahdaan peptide baa jira, laakiin waxaas wax la xisaabsada maaha. qiimahan suuqani waxa ugu yar oo dhaqaaqa waxa weeyaan waa bib. macnaha bibkani waa isbedelka uu suuqu sameeyo ayaa lagu qiimeeyaa. markaa sideebaad u xisaabinaysaa, sideebaanad faa'iidadaada iyo khasaarahaaga u eegaysaa. waxaa kale inuu eegaynaa suuqan markaad ka ganacsanayso sideebaad maxaad samaynaysaa. waxaa jira wax la yidhaha long iyo short, macnaha sell iyo buy. suuqan markuu hal lacag qiimaheedu dhaco buy baad odhanaysaa, waayo lacagtaas way qiimo dhacday. markay qaaliyoodana sell baad odhanaysaa, waad iska iibinaysaa. markaa sell and short waxa weeyaan long waa buy, shortna waa sell. macnaha waynu eegi doonaa, xagga dambe ayaynu ku baran doonaa. waxaa kale aynu eegi doonaa waxa la yidhaahdo muxuu ahaye waxaynu isweydiinaynaa maxaa suuqan dhaqaajiya. waxaa jira wax la yidhaha market makers. suuqan yaa sameeya, yaa liquidity-ga sameeya, volatility-ga, waxaasoo dhan baynu ka hadli doonaa. waxaa kaloo aynu ka hadli doonaa wax la yidhaahdo margin and leverage requirements. leverage waxa weeyaan waa borrowed money, waa lacag imika tusaale ahaan dee haddaad $100 maanta ku shubato ama $50 oo suuqi weynaa la geeyo waxba ka maaha. markaa leverage-ka isaga laftarkiisa waynu dul istaagi doonaa, iyo margin-kuba waxay yihiin muxuu ahaye waa lacago adugu leverage-ku waa lacag lagu amaahinayo. lacagtaasi brokerku maaha lacagaad qaadanaysid ama amaanaysid, lacagiin keliya ta waxay ku qabanaysaa waxa weeyaan lacagtaadii awood u yeelaysa. inagoo dul tegi doonaa platformka ayaynu eegi doonaa waxay yihiin balance-ku, equity-gu, margin-ku, margin call-ku, margin percentage-ku, leverage-ku, dhammaan waxaasoo dhan. qodob kale oo muhiima baa jira, dhammaan waxaynu soo sheegnayna ka muhiimsan. waxa weeyaan waxa la yidhaha risky money management ama risky control
adigu haddaad suuqan gasho sidee baad khasaarahaaga u kantarooleysaa? muxuu ahaayey qofka keliya isleeyahay siday tahay weeyaanba ismalihi qofka keliya ee suuqan guuleystana waa qofka ka adag riskigiisa, qofka kantaroola riskigiisa, qofka leh muxuu ahaayey balaan u dejisan ama lacagtiisa og markii intaanu tareerka galin inta ugu badan ee uu khasaari karo. haddii tusaale ahaan dee maanta muxuu ahaayey $100 aad ku shubato oo $100 aad ku gasho waa very risk. waxaa laga yaabaa $100 beenad weydo. marka risk managementiga iyo lacagtaada sa loo xisaabiyo inagoo eegeyna muxuu ahaayey position size calculatorska waynu eegi doonaa. qodobka ku xigaynu eegi doonaa waa qodob aada u muhiima, self discipline ama self control. markaa self disciplinekii waxaad isweydiinaysaa maxaa kasoo galay halkan. waxa weeyaan bahalkan wuxuu leeyahay marxalado kala duwan oo aada u badan buu leeyahay. meeshii lacagtaadii baa suuqa dhex maraysa. qofku marka uu ku cusub yahay suuqan waxyaabo badan baa qabsada. cabsi baa timaada, fear, waxaa yimaada emotion, greed, waxyaabo badan baa yimaada. qofkani wuxuu is odhanayaa hadduu doono isagoo la isku jira iska daa, way soo noqon doontaa, iska daa iska daa iska daa iska daa, wixiisiibuu waaye. ama waxaa dhici karta isagoo muxuu ahaayey aan profit badanba qaban, markuu sidaa u arko suuqiyo hadda sii socdo kor u socdaba inuu idhaahdo waaba tala soo noqdo kala boodo. marka waxyaabahaasoo dhan inuu qofku kantaroole aada bay muhiim u yihiin muxuu ahaayey iyo sidaad u guuleysan lahayd ganacsiga. waxaa kaloo inu eegi doonaa aynu kusoo muxuu ahaayey waxyaabihii dambe soo baxan waynu raacin doonaa. waxaynu eegi doonaa trading platformska. brokeraynu isku dayi doonaa inaynu ka furano akoonno tababaraa. qofku intaanu suuqa gelin chance buu haystaa. chanceku haysta waxa weeyaan qofkii maadaama uu suuqani riski yahay, marka hore waxaa la siinayaa akoon uu ku tababarto. marka intaanad akoonka real kaa gaadhin ama dhabta akoon aad ku tababarata ayaa lagu siinaya. akoonka aad ku tababaranayso deema la idhahdaa. markaa deemada brokerkaad ka furanaysaa, lacag buga baa lagu siinaya, laakiin suuqu siduu realka u dhaqmayay buu u dhaqmaya. lacagtaasaa dabeetana korinaysaa. maalintaad lacagtaa lacag ka samaysid eed si fiican ula qabsatid kadib ayuunbaad odhanaysaa dee suuqii waan la fahmay, waan la keenay, muxuu ahaayey lacag baan ka sameeyey, waxaanan u baahanahay inaan imika real ku galo trade gareeyo. markaa waxaa jira muxuu ahaayey kuwa ugu caansan waa labadanun MT4 iyo MT5 waa isku midun, waa laba version oo kala dambeeyey. ka kalena waxaa la yidhaha trading view. traderska badankoodu labadaasi ku badan yihiin. way jiraan kuwayo kale oo waxaa jira brokero iyagu sidooda platformyo u leh, laakiin MT4 iyo MT5 iyo trading view brokero badan baa kiraysta oo muxuu ahaayey waa kuwa ugu isticmaalka badan. haddii muxuu ahaayey aynu intaas la garaniyo qodobada aynu ka hadli doono, muxuu ahaayey qof kastooba horta muxuu ahaayey qof kastaaba isaga decisionka iskale. muxuu ahaayey keliyata anagu waxaanu sidan u sameynaynaa waa inaan kula soo wadaagno. waxaa jira dad badan oo xiiseeya sida looga ganacsado online-ka ama internet-ka. dadkaasoo kale muxuu ahaayey wuxuu yahay kan oo kale fursad fiican oo shaqo ku heli karaan. haddaba waxaanu baran doonaa intaynu ku guda jirno muxuu ahaayey dhammaan waxaa looga baahanyay basics of forex trading iyo siduu u shaqeeyo. qaybaha dambena waxaanu ku baran doonaa dhammaan processka tradingga forex tradingga iyo siduu suuqan u shaqeeyo, waa maxay dadka ka qayb qaata ama dadyooga suuqan lacagaha gashada, iyo sidaad adigu uga faa'iidi lahayd suuqa lacageed ee adduunka ugu weyn. markaa suuqan waxaa lagu qiyaasaa muxuu ahaayey inagoo fidyooda dambe kaga hadli doona in maalinta khaliya lagu kala qaato $5.4 trillion. waa ma lacag aan suuran karna ma lacagta intaa leeg ayaa halkii maalin lagu kala qaataa. markaa waxaan odhan karnaa waa webiyo lacaga oo socda oo u baahan inaad ka darsato. muxuu ahaayey qof kastoo researchkaaga samee. muxuu ahaayey mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu soo dhameynayaa Hargeysa Trade House YouTube channel-keenan. waxaan kugula wadaagi doonaa description-ka linkiyada muxuu ahaayey telegram-kayga iyo nambaradayada oo haddii wixii su-aale aad qabto iyo email-adayadaba
oo wixii su-aale aad qabto aad naga soo weydiin karto. Qof kastoona muxuu ahaayey waadna soo weydiin kartaa su-aal wixii kugu taagan. Waxaan xaggan hooseeda ku tusi doonaa insha allah. Muxuu ahaayey waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda oo aan description-kana idin dhigi doono, iyo telegram channelka iyo telegram groupka dhammaantood. Email address-yadana waxaan idin dhigi doonaa description-ka. Marka muxuu ahaayey kani wuxuu ahaa video-gii horeeyay dhammaan asxaabta. Qof kasta oo video-gan daawadana waxaan jecelahay inuu comment-ka noogu soo qoro aragtidiisa iyo isaga sida la tahay. Taxanahan waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaanu u duubno oonu u soo gelino YouTube-ka. Waxaana weeyaan waxa qof kasta oo taxanaha barta wax basiga oo ka maqnaan doona ma jiro. Waxaan isku dayi doonaa xitaa inaynu sameyno muxuu ahaayey deemada aanu live idinku hor furno, deemada laftirkeeda aanu idinku hor furno, kadibna aanu idin tusno sida suuqa loo geliyo sida looga baxayo. Qof kastoona aad tababarkaaga samaysid. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin mahad celinayaa. Muxuu ahaayey wixii su-aalaha ee ay u qabtaan waxaad nagu soo weydiin kartaan muxuu ahaayey telegram groupkaasi naga soo weydiin kartaan ama nambarada ama emailada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.